walow ay dunidu casriyowday heerna laga gaadhay dhinacyada nolosha haddana waqtiyada iskediyey waxaa jira dad aanay tirin dhaqamadoodii iyo dabeecadihii nololeed ee ay lahaayeen warbixintan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago dhaqanka mid ka mid ah qabiilooyinka Afrika magacaygu waa Cabdiraxmaan Nuux Xaaji Maxamed halkanina waa shabakada codka qabiilka Mursi waxa laga helaa cirifka fog ee koonfur galbeed ee dalka Itoobiya oo dhanka waqooyi ka xiga xadka Kenya ee dooxada webiga Omo dhulkan aadka u fog ee dooxada Omo waxa ku nool mid ka mid ah haraagii bani aadamka ee ugu da'da weynaa deegaanta dhulkaas kuwaas oo wali raacsan dhaqamo badan oo qadiimi ah qabiiladan oo la sheego in wax ka yar 10,000 oo qof ay ka dhaqan yihiin ayaa caan ku ah saxanada waaweyn ee dumarku ku xidhaan bishinta hoose dhaqanka xidhashada saxanada bishmuhu waxa uu ku xidhan yahay qaangaarnimada dumarka iyo u qalanka guurka gabadha qabiilka Mursi marka ay qaangaadho oo ay gaadho da'da 15 ilaa 16 sano jir waxa dibinta u jeexa qof dumar oo ka tirsan qabiilka waxaana la geliyaa ul yar oo alwaax ah dibinta ayaa markaasi tartiib ah u kala baxday in muddo ah marka hore iyadoo habeen kasta la geliyo ul ama qori alwaax ah oo ka roon midkii hore ugu dambeyntii waxa loo geliyaa saxanka bishinta hoose gabadha aan xidhan saxanka bishmaha waxa loo arkaa mid caajisa meherkooduna ma noqonayo mid la mid ah gabdhaha iyagu xidha saxanada meherkana waxa laga dhibaa hablaha qabiilada Mursi looda qaar ka mid ah saxanada bishmaha waxa ay gaadhaan dhexroorka 12 sentimitir waxaana hubaal ah inay calaamad u tahay dulqaad iyo geesinimo ka turjumaysa haweeneyda xidhata saxanada bishmaha oo laga sameeyo alwaaxa ama dhoobada waxa ay gabadha aan wali guursan ama dumarka markaa guursaday afar munaasabadood oo kala ah kow marka ay cunto siinaysa ragga laba xafladaha gaarka ah sida aroosyada saddex tartanada dongada oo ah mid ay raggu isku uleeyaan ama ulaysla dhacaan taas oo muujinaysa ninka iyo awoodiisa iyo midda afraad oo ah waqtiyada ciyaaraha dhaqanka sanado badan kadib guurka gabadhu waxay si tartiib ah u joojisaa xidhashada saxanada bishmaha waxayna sidoo kale gabadhu gabi ahaanba iska bixisaa saxanka bishmaha haddii uu ninkeedu dhinto dhalinyarada qabiilada Mursi waxay haweenka ku soo jiitaan tartanada dongada oo ay ku muujiyaan awoodooda iyo adkaysankooda maadaama ay ulaysla dhacaan ninka u adkaysada xanuunka ulahaasina waxa uu ka gudbaa xujadaasi qabiilada Mursi waxay sidoo kale dhaqan ahaan u leeyihiin inay jirkooda rinjiyeeyaan ama ay wax ku xardhaan iyagoo isticmaalaya dhoobada iyo macdanta dhulka rinjiyeynta jirku ma aha oo kaliya qurux laakiin waxay u taagan tahay sababo badan oo ay ka mid yihiin in lagaga fogaado sharka cabsigelinta cadawga iyo soo jiidashada jinsiga kale sidoo kale waxay u tartaa inay difaac uga noqoto fallaaraha cadceedda ee wejiga ku dhacaya midabaynta ama rinjiyeynta ragga ayaa iska caawiya oo isu mariya dhoobadu waxay si gaar ah muhiim ugu tahay ragga Mursiga ee mas'uuliyadoodu tahay inay looda raacaan loodu waa qayb muhiim u ah qabiilka Mursi oo ay ka helaan cad iyo caanaba taas waxa dheer inay loodu tahay midda meher ahaan loo siiyo hablaha qabiiladan hantida ninka qabiilkan waxa lagu qiimeeyaa inta tiro ee loo uu leeyahay marka laga reebo looda in loo isticmaalo cad iyo caano sidoo kale waxa lagu bedelan karaa haruurka xilliyada uu dalagga xumaado gobolka Omo ee Itoobiya ayaa u nugul roobab yari waana mid inta badan la ildaran abaaro dhanka dalagga waxa ugu badan ay beertaan qabiiladani waa haruurka oo isagoo abaarta iyo kulaylkaba u adkaysta kaasoo ay dumarku boorashahan ka dhigaan haruurka oo kaliya ma beeraan ee waxay sidoo kale beeraan faracada digirta iyo galeyda mas'uuliyadda ugu weyn ee haweenka qabiiladani waa inay soo dhaamiyaan oo xaabada soo guraan kadibna iyagoo ay kariyaan cuntada oo ah dalagii ay raggu beereen haddaba guud ahaan dhaqamada qabiiladani waa mid ay kaga soocan yihiin dhaqamada kale ee qabiilooyinka waxaana inta badan sawirro ka qaata soona booqda dalxiisayaal ka yimi meelo kala duwan oo caalamka ah taasoo u noqotay il dhaqaale qabiiladan ay abaaruhu sida xun badanka u saameeyaan mahadsanid daawade see u aragtaa dhaqanka qabiilkan Mursiga